Ma aanan filayn in ay sidaan dhici doonto aniga oo jiro da'da 90 sano, in ka badan 10 carruur ahna aan dhalay in aan ka waayo hal mid oo xanuunka ila qaybsada iyo gaajada iyo rafaadka aan ku noolahay. Waxaan ka waayay dareenkaygii aabbanimo, waxaana noqday camoole. Wax walba oo juhdi iyo dadaal ah ayaga ayaan ku soo bixiyay, maantana waa ay cidleeyeen. Waxaan idiin soo gudbi doonaa qisadaas xanuunka badan, waxaana rajeynayaa inay noqon doonto mid dad badan ay ku cimro qaadan doonaan. Waxayna qisada ku bilaabanaysaa sida tan. Waxaa jira oday 90 sano jir ah oo ku noolaa isbitaal. Odaygu aad ayuu u xanuunsanaay, wuxuu sidoo kale u ahaa camoole oo indhaha wax kama uusan arkayn. Odaygii asagoo isbitaalka jooga ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo booqday wiil. Wiilkii markii uu salaamay kadib oo odaygii la sheekaystay ayuu odaygii dhahay, wiilkaygii wax ma kaa codsan karaa? Wiilkii ayaa dhahay, adeer waa caadi oo waad iga codsan kartaa. Odaygii ayaa dhahay markaas, wiilkaygii isbitaalkan 3 maalin ayaan ku jiraa, wax raashin ah aan cuni ma jiro, aad ayaan u baahanahay. Waxaan kaa codsanayaa inaad wax ii soo iibiso. Wiilkaygii haddii aad lacag hayso waxaan kaa rabaa inaad xabad rooti ah ii soo iibiso. Wiilkii waa uu baxay, suuqa ayuu aaday. Kadib markii suuqa uu aaday, rootigii iyo cabitaan iyo cunno kale ayuu u soo gaday. Odaygii ayuu u keenay. Odaygii jab rooti markuu cunay aad ayuu u farxay, inkastoosan indhaha wax ka arkayn. Wiilkii ayuuna u mahadceliyo, ayuu dhahay, wax ka khayr badan adduun iyo aakhiro Allah ha kuugu bedelo. Wiilkii ayaa markaas su'aal weydiiyey oo ku yiri, adeer adigu wax carruur ah miyaad dhashay? Markaas ayuu ku dhahay, haa 10 carruur ah ayaan dhalay. Markaas ayuu dhahay, aawa carruurtaadii oo ma ku soo booqdaan oo ma kuu imaadaan? Markaas ayuu dhahay, maya oo ma isoo booqdaan. Kii ugu naxariista badnaa ayaa maalin iigu imaaday aniga oo jooga gurigeyga, ayuu odaygii dhahay. Markuu ii imaaday kadib ayuu wiilkii waxa uu ii sheegay in uu gurigiisa i geenayo, maadaama gurigeygu uu ahaa meel qabow badan oo aniga oo aan keligay ku noolaa. Odaygii aad ayaan u farxay, waxaa isdhahay wiilkaada meel fiican ayuu ku wadaa ayaan isdhahay. Wiilkii markii uu isoo waday ul ayuu ii dhiibay, kadibna isbitaalkan ayuu iiga tegay, wuxuuna ahaa kii ugu naxariista badnaa. Muddo 2 sano ah ayaan ku jiraa isbitaalkan, ayuu odaygii dhahay. Qof isoo booqday xitaa ma jiro. 10koodii waxay iskugu jiraan wiilal iyo gabdho, waana la guursaday, ayuu dhahay. Wiilkii ayaa dhahay, adeer alle u bari inay soo hanuunaan oo ay kuu soo noqdaan oo isbitaalka ay kugu soo booqdaan. Odaygii ayaa dhahay, anigu waan ku soo rafaaday adduun iyo aakhiro, wax walba oo aan rajo ka lahaana ayaga ayaan horseed ugu dhigay si aan naftooda horumar u gaarsiiyo. Odaygii aad ayuu u murugooday, kadibna waa uu ooyay. Markaas ayuu dhahay, adduun iyo aakhiro wax aad ku faraxdiin Allah idinma tuso. Wiilkii waa uu iska baxay muddo 2 bilood kadib ah ayuu odaygii u soo noqday isbitaalkii. Markuu imaaday, wiilkii waxa uu arkay sariirtii oo cidlo ah. Kadib dhakhtarkii ayuu weydiiyey, wuxuuna ku yiri, aaway odaygii? Wuxuuna ku yiri, adeer odaygii 2 bil ka hor ayuu dhintay. Wuxuuna dhakhtarkii sidoo kale wiilkii u sii raaciyay in aysan jirin wax carruurtiisa ah oo soo booqday, laakiin ay ku wargeliyeen mid walba oo ayaga ka mid ah oo la wacane oo sheegay inuu mashquul yahay oosan imaan karin. Wiilkii aad ayuu u murugooday, wuuna iska baxay. Qisadan ayaana waxaa ka baranaynaa in waalidka marka garab uu kaaga baahan yahay, garab istaag aad u sameey kartid. Waalidkaada inta aad yartahay wuxuu ka qayb qaataa horumarka noloshaada. Raaxada maanta aad ku jirtid iyo ku sirin adduun ayuusan ku qaadin. Waalidkaada garab iyo heelo ayuu kaaga baahan yahay. Haddii ay jiraan dad waalidiintooda sidaas oo kale ula dhaqmo, u sheeg in waalidkooda garab ugu baahan yahay. Waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. Waxaad ka daawanayseen
barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24 inta aan ku kulmi doono qiso noocan oo kale ah. Nabadgelyo.